maanta waxaan inii wadaa duco aad ku ducaysanayso markii xanuun uu ku hayo. haddii isha laga hayo, haddii caloosha laga hayo, haddii lugo laga hayo, iyo haddii miska laga hayo, iyo haddii jidhkaba uu ku xanuunayo. ducadani waxay dawo ka tahay haddii qof il uu kugu soo tuuro, il xaasad ay jirto oo nimcada iyo quruxda ilaahay uu kugu manaystay uu kaa xastay ama uu kugu xastay. saa darteed ducadan haddii aad akhrisatid oo adigoo weyse qaba oo tahaaro qaba oo meel fiican ku tukaday, 2 ragcadood tukaday oo gamcaha kor u taagay, insha allahu tacaalaa ilaahay wuu kugu caafin doonaa. khaasatan ducadani waxay wax u taraysaa dumarka, inkastoo caam ay tahay, dumarkuna way aad bay u anfacaysaa. sababtoo ah dumarku waxyaabaha u badan xanuunyaha ayay qayb ka yihiin. haddii dumarku ay akhristaan ducadani oo isku tufaan, ama zawjkooda ama wiilashooda ay ku tufaan ama ayaka isku tufaan, ducadani way caafinaysaa insha allahu tacaalaa. gabadhay muslimadda ahay, walaashay ducadan akhriso. walaalkii muslimka ahow, adigana ducadan akhriso. waa ayna anfacaysaa kulligeen oo dhan. ilaahay subxaana wa tacaalaa ayaa noo soo dejiyey diintan xaniifada ee wanaagsan ee quruxda badan ee wax lamida aansa jirin. ducadani waxay dhahaysaa ciwaankeedu ducaau shifaau alcaajil, ducada caafimaadka degdega ah. haddii aad samaysid insha allahu tacaalaa waad ku dawooweysaa. ducadan markaa waxay dhahaysaa bismillaah, alle magaciisa ayaan cuskanayaa, allihii ayaan weynanka badnaa. arqi nafsii, naftayda ayaan ku tufayaa oon ku daweynaya ducadani. oo maxaan ka daweynayaa? min kulli shayin yu'diinii, shay kasta oo idhibhaya, oo i rafaadinhaya, oo mushkilad igu abuuraya ayaan ku tufayaa siday meesha xanuunka iyo uga baxo. wa min shari kulli nafsin aw caynin xaasidin, naf kasta iyo il kasta xaasadnimo darteed u imaata ayaan ku daweynayaa. bismillaahi arqii nafsii, alla magaciisa ayaan ku tufayaa oo ugu tufayaa naftayda. allaahu yashfiinii, ilaahay ayaa i caafinaya. maa shaa allaahu kaana, waxa uu ilaahay dhaho way ahaanayaan. maa shaa allaahu kaana, wax alla wuxuu ilaahay dhahay wuu ahaanayaa, wuu ahaa. wamaa lam yasha, wuxuusan ilaahay qadarinna lam yakun ma ahaanayo. walaa xawla, xeelad ma haysano oo tab ma haysano oo ma haysano qaab aan wax isaga caawinno ma haysano. walaa quwata, awood aan wax ku qasbannana ma haysano ilaa billaah, alla mooyeene cid kale oo na shaafin karta ma jirto. as'alullaha alcadiim, allaha weynanka badan ayaan weydiisanayaa rabbul carshi alcadiim, allaha carshiga sarreeya weynanka badan iska leh ayaan wax weydiisanayaa. an yashfiika, waa qof kale markaad aad ku tufaysa weeye. an yashfiika, inuu ku caafiyo walaalkii muslimka ahow. wa yashfii marada almuslimiina, inuu ilaahay caafiyo dadka xanuunsan ee muslimiinta ah ee isbitaallada ku jira. waxaad ogaataa ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu ku siiyey caafimaad. waxaad ogaan doontaa caafimaadka qaalinimadkiisu goortii aad booqatid isbitaallada. markaad booqatid ayaad ogaan doontaa caafimaadka waxa uu yahay iyo meesha uu joogo. markaad aragto dad da'daada ah, kuwa kaa waaweyn, kuwa kaa yaryar, iyo kuwa taajiriina iyo kuwa fuqara ah,
iyo kuwa madaxa iyo kuwa raacyada oo isbitaallada yaalla oo sokoro hayso oo gaas uu hayo oo dhikar uu hayo iyo xanuunyo neerfo ay hayaan iyo mashaakil tira badan marka aad aragto ayaad wax garwacsanaysaa. sidaa darteed adkaartan akhriso, ilaahay subxaanahu watacaala waa uu kugu caafinayaa, waadna ka badbaadaysaa dhammaan sharta ee nafta iyo indhaha xaasidiinta ah ay kugu soo eegayaan. gabdhaha muslimiinta waxaan si gaara ugu dardaarmayaa inay jidhkooda asturaan oo ka asturaan dadka ajaanibta ah, ilaahayna subxaanahu watacaala aadna ka xishootaan, miina doonaynin in aad ilaahay cadaabtiisa ka badbaadaan, jannadiisana aad gashaan.